اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxa weeye gurigii guurtida beelaha garxajis ee bari waxaanu isugu nimi inaanu ka bixino aragti iyo talo iyo oraahba aan wax ka nidhaahno arrinka runtii imika muddada soconayay beesha burco ee bari ay ku baaqday waxaanu leenahay runtii shirku dhib maaha in la shiro ama garxajisnimo iyo maxay tahay habar jeclanimaha loo shiro ama burcanimaha loo shiree in la shiraa dhib maaha wax uqdadoo aanu ka qabno shirka burco iyo habar jeclo shirkeedana ma jirto habar jeclo waxa weeyaan waa garabkayagii midig waa tolkayo isku degaan baanu nahay ilaahay baa noo daawo qaaday wax dhibaanu ka qabnaa ma jirto laakiin waxaanu u aragnaa shirka marka la alcaaminayo laba ujeedo unbuu inta badan maanta ku qabsooma mid waxa weeye waa qaab siyaasadeed midna waxa weeye waa qaab dhaqan iyo nabadgelyo siyaasadii runtii waqtigeedii de maanta lama joogo muddo badanna way ka hadhay waxa runtii burco u badanee laga yaabo in dareen ka jiraana waxay ahayd siyaasadii barnaamijkii siyaasadii dhacday ee doorashadii hore ka hadhay ayuunbay ahayd siyaasaduna wax meel fadhiya ma aha waa wax maalinba wajiga doonto keenta waxaanu leenahay arrinkaasu in wakhtigiisa lala sugo oo barnaamijka siyaasadeed wakhtigiisa lala sugo ayaa runtii muhiimadiisu ay tahay waxa maanta annagu aanu tala ahaan ku bixinaynaa walaalada iyo gogashaa ay qabteen ama ha ahaado suldaan maxamuud guuleed ama maxay tahay boqor buur madow ha ahaado shirka ay hormuudka ka yihiin boqorka waxaanu ku talinaynaa waa boqorkii bari beel qura boqor uma aha waxyeeladii u dambaysay ee ka dambaysay tii Soomaaliland oo dhan sheekh iyo shariif caaqil iyo codkar la isugu tagay ee boonjabintu ka dambaysay dilku ka dhacay ilaa hadda boqorku wuxuu ka qabtay iyo wax ka jira iyo wax cidoo laga soo qabtay midna ma jiro maadaama aanay jirin oo ay taasu dhacday waxaanu ku talinaynaa inay shirka siyaasadeed ka horeeyo shirkii turxaan bixinta shirkii nabadgelyada beelaha sacad yooris ardaaga sacad yooris haddaanu nahay beesha garxajis ama habar yoorista bari waxaanu anagu ballan qaadaynaa nabadgelyada wixii ay xumeeyeen hadday wax xumeeyaan inaynu mas'uuliyadooda qaadno haddii adduunyada ay wax ku dhinaadaan inaynu mas'uuliyadooda qaadno laakiin waxaan leenahay ardayada habar jecel ee bari ama kuwa burcaba yaa caruur yaa raadiya dhalaan yaa raadiya baa la yidhi ninaan dhalin kasa dheerayn waxaanu leenahay qolada reer ceelaf weyn barnaamijkooda iyo qoraalkooda iyo nabadgelyadoodu wax badan bay soo noqnoqotay waxaanu leenahay beesha burco ee habar jecelo arrinkaa ha isu taagto oo barnaamijka aynu maanta ka wada hadalnaa ama la isugu yimaadaa ha noqoto nabadgelyo haddii aan nabadgelyada la helin oo aan la kala bogsanin laba ninaan la kala bogsanin gogol kuma wada fadhiistaan gogol la isuguma iman karaan waxaanu codsanaynaa annagaan shirka diidayn annagaan shirka ceebaynaynin iyadoo shirku ay nolosha ragga tahay iyo dalka iyo dadkaba waxaanu ku talinaynaa oo aanu ku baaqaynaa oo boqorka waliba ugu baaqaynaa inuu soo afgooyo
inuu wax ka qabto in wixii lagu taloobi lahaa la isugu iman lahaa ay boqorka ka muuqdaan oo cuqaashiisa ka muuqdaan oo beeshiisa ka muuqdaan ayaanu aad maxay aanu ugu codsanaynaa aanu ku soo jeedinaynaa kale waxaanu leenahay ama dhaqan ha ahaado ama wuxuu doonaya ha ahaadee cidda miidiyaha wax ka odhanaysa talada reerka wax ka odhanaysa waxa ka wacan nebi maxamed baa la yidhi dadkaaga la show inuu ninka baaqaya ee magac beelood ku baaqaya waxaanu leenahay dadkaaga la shir oo dadkaaga cod ka hayso oo dadkaaga wax u sheeg oo dadkaaga wax ka maqal ayaanu iyadana aanu ku soo dhawaynaynaa anigu hadalka intaasan kaga baxayaa insha allah ilaahay waxaynu ka baryaynaana in ilaahay nabaddaa inoo soo afgooyo Sacad Yoonis waxoodii waa ka diyaar waxooda kalena annaga ballan qaadayna waxaanu leenahay shirka lagu baaqa iyo imaantiga la isugu yimaada ha noqdo shir nabadeed oo ka dhaca Ceelaf Weyn ee aan mid burco noqonin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan salaamayaa shirka halkan isugu yimi maanta shirka jaraa'id qabanaya salaanta islaamkan ku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan caaqilkaa dhammeeyey hadalkii inihii ugu waaweynaa ee aanu maqsadkii aanu halkan u nimi caaqilkaa dhammeeyey shirkaa isagaa ee habar jecle iyo garxajis loogu dhawaaqay waa shir aad iyo aad iyo aad marka hore u sharaf leh waxa weeye waqtigiisii baanu joogin waqtigiisii muu gaadhin waxaa markaa hadalkaasi noqonayaa in arrinkaa isagaa dib loo dhigo sababtuna waxa weeye reerkii dhibtu ku timi labadii reeree isku dilay Ceelaf Weyn waa in halkaa shirka lagu qabtaa shir aanay Sacad Yoonis ku jirin oo aanay hogaaminayn garxajis qabsan maayo waayo iyagay dhibtu ku dhacday markaa waa in shirkaasi ahaadaa shir Ceelaf Weyn ka dhaca habar jecelada togdheer siduu u sheegay caaqilku waa dadaan walaalanahay hiil iyo hoobo waa naga dhaxeeyaa doorashooyinkiina xurgufteedu marba nin baa la doortaa xurgufi ma jirto marba ninka la doonaabaa la dooran doonaa cuqaal baa weliba hadashay reer burcaa oo habar jeclaa waxba nama dhex yaallaan bay yidhaahdeen si wacan bay u hadleen waanu ku taageersanay sida ay yidhaahdeen waxba nama dhex yaallaan run bay sheegeen waxna dhex yaallaa ma jiraan waxana dhex yaallaa habar jecel iyo habar Yoonis waa dagaalka Ceelaf Weyn ka socda kaa waa in markaa la rumeeyaa kaasoo aan la soo afgoyn habar Yoonis iyo habar jecel waxay ka shirayaan maanu garan ragga ku dhawaaqaya hadday sulaadiin yihiin iyo hadday boqorriin iyo hadday siyaasiin yihiin mid walba waxaanu leenahay waa qalad kaasaa laynooga baahan yahay inaynu soo afgoyno Sacad Yoonis kaasaa marka garxajis la sheegayo shirkaa iyaga hogaaminaya oo nagu hogaaminaya annana waa ku raacsanahay taasi taa weeye qodobka caaqilka aad u dhameeyay laakiin kulli mar haddii xafladaha la isugu yimaado waa lagu kala faa'iidaystaa meelo kale aan yara taabanaya anugu waxa weeye xusbiga wadani waxa weeye ciro waa nin habar Yoonisa ninka la yiraahdaa xirsino waa habar jecelo way ku fayl garoobeen inay Ceelaf Weyn ku soo afkooyeen waa ku fayl garoodeen marka waxa la igu yiri shirka labadooduba way ka dambeeyaan burca lagu qabanayo oo waxaan idin siyaasiyiinta waxaan u sheegayaa oo maxaa ku qabanaysan burcana dhaxyaa labadiinuba waxa loo baahan yahay labada reer baa ka soo kala jeedaan ina arrinka Ceelaf Weyn wax ka qabataan baa la doonaya haddii kale xusbiga wadani kuma jirno waanu ka baxaynaa hadaa soo afkooyin weydaan waana ku fayl garoodeen idinkiya dawladdu waa ku fayl garoodeen dawladdu waxa la leeyahay ka dambayso marba jabhada samaysa deedina la mid baan noqoteen aad baan uga xumay xirsi iyo ninka la yiraahdo ciro inay yiraahdaan burcaanu shir ku qabanaya ka dambeeyaa la taa intaasaan oranayaa nin kale aan yara taabanaya oo la yiraahdo Cali Guray oo si wacan maalin dhaweyto u hadlay oo noo faanado yiri 20 sanadood baynu kala horeynaa oday annaga aba bari wuxuu oran jiray oo la weydiiyo la galbeed ka waran galbeed waxa dhaama buu niri gaarood ku dhalata balorta Cali Guray oo markii hore halkaas aanu taagnayn haddaanu annaga noo faanka annaga lahaan jirnay marse haddaan noo faantaan aanu istilayno haddaanu habar jeceliyo habar Yoonisnaay gun haddaad maqashana waa habar lamaan iyo odaygooda u boqorka waa gun weeye
annana guntaanu ka midnahay mar haddaanu habar jeceliya habar yoonis aanu arrinkaas soo afgoyn weynay mar haddaad adigu se waxaad ahay tol baad noo hayde inaad noo faanta may ahayne dee inaad wax ka qabataabay ahayd cali guray haddaad tahay inaad noo soo gurmataabay ahayd laakiin inaad tiraa annagaa ka horrayna qoladaa nin weynoo 80 jira baa too waynu isku dhowdhownay dawmaad lahayn haddii la sheegayo xumaan galbeedka waan kala reebayaa niman kale ilaa Samaroon waa gob waadigii ku dilay 3 nin oo muraayada Soomaaliland waadigii ku dilay gabiilay markaad ku dishay Samaroon way ka samirtay waanu u mahad celinaynaa miyaana taa xasuusnayn markaad sheegaysaa inamada yaryar ay isku dilaayeen ceelaf weyn taa hadduu biirsi ka jawaabo gobna maad ahaateen madaxna maad ahaateen waa la isku jabila qoladaas aanu mahad celinaynaa gobta maanta Soomaaliland waa Samaroon waa kuwa laba nin lagaga dilay garadagoo madaxa midna waxba kama samayn dee haddaad gobonnimo sheeganaysa cali gurayow waa gobonnimo qoladaas ku soo hoysay raggii muraada laayay baa tahay waxaan halkaa kaga baxayaa shirka isaga ceelaf weyn baa lagu qabanayaa suldaanna kuma dhawaaqi karo keligii boqorna kuma dhawaaqi karo siyaasina kuma dhawaaqi karo cid kalena kuma dhawaaqi karto cali gurayna wuu nala helay mar hadduu yidhi barigu waa gun oo maanta noo faanay waa runtii mar haddaanu soo gebagaban weynaa annagoo habar jeceliya habar yoonisa arrinkaa ceelaf weyn ka dhacaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore shirku waa salaamay salaanta islaamkan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib xafladan quruxda badan leh ee beesha garxajis bari ama gobolka burco maanta ka dhacaysa aad baan u soo dhaweynayaa dadka qabtayna waa ku mahadsan yihiin waana ku boorinaynaa intaa kadib salaan kadib waxa weeye shirkani wuxuu daba socdaa baaqyadii iyo shirarkii Hargeysa iyo hadeeba ku roon yahay meelo burco ka midaba laga baaqay ama bariga hergaamo laga baaqay baaqyadaasi way badnaayeen waana inaan wajiyaal badanna way lahayn koow ka shirkan ujeedadiisu waxa weeye inaan shirkii shirkiinan Hargeysa ay sulaadiintu kaga dhawaaqday gaar ahaan ay soo qabanqaabiyeen uguna horeeyeen baaqiisa boqor buur madow iyo suldaan maxamuud guuleed dhinaca beesha bariga odayaashooda ama sulaadiintooda ay iyagu ay soo dhaqaajiyeen baaqiisa koowaad ay lahaayeen sulaadiin kalena ay taageereen ee la yiri burca lagu qabanaya waxaana shirkaa ku wada hadlaya oo isuga imanaya beesha Muuse Sheekh Isxaaq iyo beesha garxajis waxa weeye haddaan ka jawaabo odayaashii hore iyo suuqaashii hore arrintaa ka jawaabay waxaan leenahay shirka maanta qabashadiisu maya baanu leenahay sababtu ay tahay waxa socda dagaal dhiig baa daadanaya maanta waxa loo baahan yahay waliba dhinaca inaan ceelaf weyn iyo ceerigaabana waxideeda labadii beelood ee hore muddada badan isu dilayay ama isu waxyeeleeyay mararka badanna arrimadooda la soo gabagabeeyey ee la dhexdhexaadiyey ee nabad badan iyo adeeba ku roon yahay wada hadal badani la dhex dhigay iyo heshiis badan ee haddana mar walba kacdoonku iyo hadeeba ku roon wacadfurka badani uu ka jiray ugu dambeynna lagu dilay muddo iminka 2 wiig meelahaasa ninkii u dambeeyay beesha Sacad Yoonis waxaanu leenahay maanta shir siyaasadeed looma baahna waxa loo baahan yahay turxaan bixin iyo walaalayn iyo sidii hadeeba ku roon dhiiga daadanaya loo afsoo afjari lahaa taasaa loo baahan yahay shir nabdeed baa loo baahan yahay sidii odayaashii horeba sheegeen waxaanu leenahay shirka siyaasadeed ama nabadeed ee weyn dub ha loo dhigo kaa waxa laga qabto hadeeba ku roon yahay sidaasaanu leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qodobada kale waxba uma nuuman waxaanu nimin nimanka xabada ridaya ee waaxda garxajiska bari ka soconaysa heerade ayaa nuunimi dagaalkaas dhiiga iyaga daadanaya maanta heshiis iyagoo aan nabad qaban oo nabadii wax ka qaban oo gogol dhigin oo reerkoodii dagaalka wado oo maalin walba dhiiga iyaga qubanayo maanta waxaanu u baahannahay gogol iyo shir baanu qabanaynaa meesha ma qabato waa inay markooda hore reerkoodii nabad ka sameeyaan markay nabad ka sameeyaan ee gacanta labadii reer la isu saaro markaasaa nabaddu imanaysaa horta waxaan leeyahay marka hore kaa waxa ka qabteen annagana bari haddaanu nahay dagaalkii waana dul saaran yahay xag walba waa ciidan baana dul saaran marka iyadoo aan ciidamadii la kala dejin oo dagaalkii soconayo oo maalin walba dhiiga iyagii daadanayo maanta heshiis baanu gogol u dhigaynaa nama qabato waxaanu leenahay horta kaa wax ka qabta nabad ka sameeya heshiiya marka la heshiisiyo oo aynu heshiisiino markaasaa nabaddu imanaysaa gogashuna imanaysaa annagu intaanu meesha u nimi waa intaa يا اوكي تنا او كان سكلا واد بلابنا ميكروفون كان قبصو بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu bilaabaynaa shirkeennii aayadihii qur-aanka aaya aynu akhrisanina ilaahay aynu ugu anfaxo shirkan aynu isugu nimi waxaynu isugu nimi beelihii garxajis bari waxaynu ka jawaabaynaa shirarkaa la leeyahay kolba la leeyahay buur madow iyo way shir baanu qabanaynaa burca oo aanu ka duubaynaa aanu fadhiisanaynaa shirka ayay beelahaasi ka hadlayaan waana odayaashoodii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii aqoon-yahankii salaadiintii intuba way ku dhantay waanay waxa ugu horeyn doona oo halka ka hadli doona salaamaya boqorada culimada cuqaasha odayaasha meesha isugu yimi shirkan isugu yimi ayaan salaamaya salaanta waajibkaa ku salaamaya assalaamu calaykum intaa ka bacdi hadal badan anugu odhan maayo ama suldaan ha ahaado ama boqor ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama caaqil ha ahaado hoosba hadal labay soomaalidu ku mahmaadaa hoosba hadal leh ooda dhacmed siday u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaanu leenahay miyay idinka qaldantay shirka burca lagu qabanaya aad ku dhawaaqaysaan miyay idinka qaldantay ragga shirka ku dhawaaqayo waxba anugu nina magacaabi maayo salaadiin bay leeyihiin boqorray leeyihiin cuqaal bay leeyihiin codkar bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin ma waxaa idinka qaldantay sidii ay u kala horrayn jireen nabadaynta iyo shirku nabadaynta hadday horrayso ragaanay sarki karaynin oo wada hadli karaynin oo wada fadhiisan karaynin oo idamadoodii maalin walba leeyahay mid baa halkaa lagu diliye labaa lagu diliye saddex baa lagu dilay shir baanu qabanaynaa oo shirka meel la isku dilaabaad doonaysaan burcana lagu qaban maayo ceelafooyin baa lagu qabanayaa haddii nabadi dhacdo oo la yeelo midda kale haddaanu garxajisnahay annakaa ballan qaadnay nimanka sacad yoonis wixii ay geystaan annakaa saxeexayna boqol oday baanu ku saxeexaynaa cuqaal baanu ku saxeexaynaa waxgaradkeedaanu ku saxeexaynaa war ciddii saxeexi lahayd inay wax ka qabatay reerka ay sacad yoonis isdilayaan boqor burmadow oo adigaa lambarwana adiga iyo cuqaashaada iyo salaadiintiina kale lambarwana ka hadla shirka oo waxaad tirahdaan annakaa saxeexayna markaasaynu shirka qabsan karaynaa la soo afgooyo ee qodaxda ninka ku taagan laga gooyo waa nin dhaawaca baan shir u qabanayaa shir siyaasadeed iyo shir kale u qabanayaa siday u dhici karaysaa shirkii marka laga dareeraa halkan lagu dilayaa mayd kalaa yaalla siday u dhici karaysaa waxaanuu malaynaynaa wax sibiiba xata la yidhaahaa jira oo lagu daadiyo guryaha la dhigo oo in yaroo biyaha haddii lagu shiro lagu sibiibaxatooba war bal ragga sibiibaxatada wadow waynu isgaranaynaa waynu sognahay sibiibaxatada laga daayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بينكم محضنا قينا نمعوين كي سفرها بدن ونقول من نايستي انت كدب هذا الكائن كسر دوانا إياه نحر كي شركة لاقبتي رجي جهوري أياد ميي مدوان صح يا وضيض عرب كسر عايش شركة وحالة قبانا يا عيل أفوين shirkani wuxuu nagu soo gaaray walaaladayo ay ku baaqeen inuu yahay isku soo dhawaanshiyo iyo islaab xaadasho haddaba shid islaab xaadasho ahide ka dhici maayo eelafweyna waxa ka dhacaya shir lagu nabadaynayo labada reer ee ishaysta ama isdilaya shir lagu nabadaynayo ama maxay ahayto juhdi lagu nabadaynayo oo dawlad iyo guurtiyada guud ee Soomaaliland iyo jifooyinka ay ka soo kala jeedaanba xil ka saaran yahay oo loo baahan yahay in waxa lagu soo afjaro ayaa ceelaf weyn ka dhacaya shirka isku soo dhawaanshiyaha iyo laab xaadashada ee walaalada ay ku baaqeen waqtiga ay turxaantu dhamaato ayuu insha Allah dhici doonaa waxaad moodaa inay u eg tahay in bay ka duwan tahay abwaan hadraawi بريجي باشاني أما Soomaaliland ay dagaalka ku jirtay ay doonaysay inay waxa la soo noqoto ayaa maalin wuxuu yiri ku jirtay murtidiisa nin gar iigu dudayo dermaha igu kala bixin duqaydiyo wax garadkii dadka ugu da'weynay dumbuqbaan u dhiibo mayd bay dul yaaleen miyaan geedka damalka doonyaysan karaya marka dhayla dubantay digsi xanan kulkaan qabo iska rogo daboolka fadhi dagagar yeeshaan garan dooca hadalka taa waxaan uga jeedaa ceeraf weyn sheekhyada dhan inaga midka ah hadaynu labadan beelood nahay ceelaf weyn ilaa ceeri gaaba yaala xaqiiqo waxa inaanu nina gurigiisa seexanin war nin cabsi gurigiisa u seexan waayay miyuu gogol doonyaysan karaya jawaabtu waa maya waxaad moodaa ragga soo celcelinaya shirkan arintiisa inaanay hawsha ishaba ku haynin ama aanay war weynba ka haynin ayaad moodaa hawshaasi meel xun oo serious ah imka maraysa xagga dawladana canaan aan yarayn bay ka leedahay oo xoog may saarin dawladdu jifooyinkii labada reer ka soo kala jeedeenna way ka daaleen waxay u baahan tahay hawsha kaliya ee inoo taala inay taa tahay inta aynu wax ka qabanno marka taa wax laga qabto walaalada iyo waxaan u sheegaynaa gogol wanaagsan oo turxaan lahayn oo ay u midaysan yihiin oo aanay dawladna ka soo bariyeen cid kalena aanay u daba fadhiisanaynin marka ay fidiyaan beelaha mataanaha aba imanaya garxaji soo quru iman maaye gogosha beelaha mataanaha ayaa iman doona markay gogol nadiifa oon cidna laga bariyaynin cidna laga haybaysanaynin ayaguna ay ku midaysan yihiin markay gaadhaan beelaha mataanaha ayaanu soo tubi doonaa maanta se waxaan leenahay walaalayaal dhibtaa halka bariga inaga haysata aan wada baktiino wixii annaga nagaga soo aada diyaar baan u nahay sidii raggii hore u sheegay waar idinkana wixii idinkaga soo aada ood moodo inay xaqiina u badan tahay ayaa la idinka rabaa sallallahu alayhi wa sallam aad baynu isu salaanay waa salaamantihiin anu waxaan taabanayaa laba qodob waxaan leeyahay shirka lagu baaqay sulaadiintu qaarna u ballan qaadeen waanu diidnay anagu waanu diid waxaanu ku cutrinaynaa waxay gaashaanka qawdiisa waad maqlaysay dhiigga shalalaxdiisana waad arkaysay war dil baa socda ninku habeenkii aanu gurigiisa seexanayn oo saacadii walba waxbad iska eegayo wartaa marka meel lagu tiiriyaabaa la shiri karaa oo siyaasadda iyo isu soo dhawaanshiyaha shirka markaasaa laga shiri karaa waxaanu leenahay war waxa laga qabto wax daacada la qabto marka wax la qabanayo war wax daacada oo loo hagar baxan yahay oo aan cid باور كجدونين واروح اللو أبطو ضاعت وح اللو أبطو وحن خرب بحية هذا هنا حديث تشنا كورابي نكى سنجوبين أنتي
yaa beri riwaayadu dhigay waxa ku jirtay sawaxanka iyo geediga wadada siiga badanleyd saabliida haamaha ku lumay sara u khaynaanka siday noqon isha saxarka laga bixin karaan laga sameeyeen siday noqon salaana niyo ahayn gamcaha la isa saarayo siday noqon war siday noqonina war waxa lagu baaqayo waxa la leeyahay hal la qabto war wax daacad laga yahay hal la qabto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرهات إسبري. أنا قام قاعد هاي أحمد هارون حسن. كنا من ها قرب شوك تا كرهات إسبري. هاتن هل كان قصة كان. هذا هاي أنا قرب شوك تا أو عن ما أنت أنا قاف كودي هل كان كجاه الله يو. قرب شوك تا كرهات إس هذا أنا هاي. وحبان كنت عبني. waxaan ku tacabnay shirki gacan libaax waxaan ku tacabnay sooimaatin waxaan ku tacabnay wax uu xoog badan iyo dhaqaale badan inaga baxay waxaanu taageernay gudidii maanta haddaanu nahay qurba joogta garxajis ma yeelayno waan ku darayaaye والله ما يلينو وحان كسوفين جدي ذا جرحتيس ما يلينو تلاان كإيمان ما يلينو تلاان كإيمان جدي ذا جرحتيس وأنا يا مستنبيت كودا وأنا أنسحنين ما يلينو إيجا أنو دوا فدينا إيجا أنو تاجروا بحدو هاينا إيجا أنو مان تأجنا iyagun baanu dhageysanayna wadadii ay noo jeexaan iyo meeshii ay namariyaan oo baanu maraynaa hadii xitaa iyaga laftooda aanu talooyinkooda iyo sida ay wadaan isku garan weyno annaga tacab badan baa naga baxay xoog badan baa naga baxay waqti badan baa naga baxay iyaga qudhooda waa laga tashanaya aad iyo aad baan u wada salaamay madax dhaqanka jiif caaqilada salaadiinta bahda saxaafadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة جراد ما أنت بيش لبعض تاي وحدارين هاي شركة لقى واقعي برجع برعاء اللي أقول واقعي بيرها جرحتيس إياها برشلة. بعوي نبى وحولي إسحاق ما دين الحق ده ديبول. أنا قاعد أقول هاي جرحتيس بري ما أنت ما ندين إنها برشلة يجرحتيس شرع ما ديتني. وحنقول له ناي نبض باكو الرئيسة سعد يونس وحو كمدي بلا قرحجس هدانو نبض هاي السنين نما نبض هاي السنين الشركة ما سوقيب قلاي waxaan leenahay wadada uu sheegay caaqil baashi jiifku ayaanu ku taageersanahay in halka la xiro qodobka labaadan ka leeyahay waxa weeye hadaan nahay garxajis ya halkee maanta garxajis wax looga gooyaa halkee bay taliyo staala hadalka waa lagu celceliyay garxajis taladiisu maanta way urursan tahay ما فلق سنة قف ما يرين كرو أما سلطانها هذا أما سياسي هذا وحقو يرين كرو قرى جددي كعن لباح يا مستنبت كذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شركة دائما كوحن بو قاري قدون كيا جبدي مركها تصالحان هل كان ده شركة مكها وحو قاري حرتان كيا جبدي شركة وحنا دي أقول تاجر سنة مركها هره odayaashii qiimaha badnaa ee garxajis bari ama garxajiska dhexe burco sida qiimaha ay uga hadleen dareenkooda iyo xaaladda taagan runtii hadal mar waa xidhitaan oo de suldaanku soo ogtiin gudoon buu leeyahay waxaanu gudoomiyaa waxa rag isla qaateen marka hore hadalkii halka ka baxay waan gudoomiyay inta kadib in Yurub baan raacinayaa gudoonkayga oo anigana waxa weeye rayigayga ah de waan raacsanahay mar haddaan gudoominayo waa sida weeye waan raacsanahay runtii marka nabad laga hadlayo ama gogol nabadeed de waxa la faran maran baa wax lagu daaweystaa oo marka waxa weeye de beej cad oo de wax nadiif ah marka la helo aanay waxba jirin ayaa de shir la galaayo waxa weeye turxaan la saaraa iyadoo dayno dul taalo in wax la xaliyo ay ka horeyso nabad in la helo de waxa weeye shir qabsoomaya de waxa weeye marka de sidoo eegaanayo qof aqalga laga fahmaya runtii waan soo macnaha walaalaheena bariga burco uu kamid yahay Suudaan Maxamuud Guuleed
iyo suldaan cabdilaahi runtii cunfiga yara dhacay dhibaatada dhacday ee halkaa ka dhacday maanta waxa weeye dareenka xitaa lafteeda ku jira waa arrimihii siyaasadda ayna soo dhex maray bay ahaayeen waxaanay ahayd gacan isqabsashadii dee waxa weeye inagoo dee isku reer burca oo gogol ay noo taallo gogosha maalintii aan nayar dhaafiseen ee gacmaha isqabsateen ayaa horta arrintaasi sii kululaatay maantana waxaa leeyahay suldaan maxamuud guuleed mire iyo suldaan cabdilaahi idinka ayaa laydinka baahayoo nabadda ay ku xidhmaysaa wixii idinku aa ka gasheen arrimihii siyaasadda inaad maanta ka toobad keentaan oo aad tidhaahdaan waxa weeye war maalintaas siyaasad bay ahayd ilmaad reer maantaanu ka noqonaynaa oo aad bayaamisaan codkiina aad ku hadashaan oo aad tidhahdaan war wixii maalintii aanu gallay waanu gafilay waanu ka noqonaynaaye aynu ilmaad reeyaalo walaalo ku walaalowno taa intaasaan leeyahay boqor buur madow oo runtii isaguna ah jifada nimanka baha la yidhaahdo oo dee odaygoodiiya waxaan leenahay boqor adiga waxaa lagaa rabaa nabadda ceelafoyn inaad ka hadasho oo waxa weeye aad nabadda ceelafoyn adiga boqorkeedii ah adigay kugu xidhan tahay madaxweyne muuse bixi baa wuxuu yidhi maalinuu hadliya dhaweyto wax badan baan ognahay telefoonaa jira anigu boqorka wuxuun baan leeyahay telefoonaha ina bixi sheegay madaxweynuhu telefoonada dee buur madow meesha ka daa dalkii kaalay nabad ka shaqee runtii waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa sida aynu wada ognahay dee garxajiis guddi buu qaatay oo isla macnaha guddidaas sare ee garxajiisa mustambeedkooda go'aan ka soo baxa uunbaa garxajiis dee uu ku wada hadlayo oo isugu imanayay oo lagu wada hadlayay markaa waxaan leeyahay guddoonka guud ee garxajiska dhexe ama garxajiska bari garxajis saddex baa lagu sheegaayo garxajiska markii leeyahay galbeed dee waa galbeed iyo hargeysa garxajiska dhexona waxa weeye waa gobolka togdheena waxigiisa garxajiska barina waa gobolka sanaag markaas halkan waxaa ku shiraya gurigii caanka ahaa ee qiimaha badnaa ee guddi cimraan oo maanta isaguba dee waxa weeye guddi cimraan waa garxajistii markaa waxa weeye isna baalaasha la kala baxay aad iyo aad baan u soo dhaweynaya odayaasha waxaan leeyahay markay dhanaato waalkii lagu soo eerinayay dii markaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa shirkuna saasuu inoogu xidhan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu